Shacabka ku dhaqan degmada Balaadh ee ka tirsan gobolka Gabiley ayaa si weyn uga soo horjeestay xadhiga lagula kacay musharax Shucayb Maxamed Muuse oo ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan ee ka sharaxan xisbiga UCID. Shacabkani kala duwan ee deegaanka Balaadh oo iyagu taageero buuxda u haya musharax Shucayb Maxamed Muuse ayaa xadhiga musharaxa ku tilmaamay mid cadaalad darro ah, waxayna hoosta ka xariiqeen inay markasta garabkiisa yihiin musharax Shucayb Maxamed Muuse. sidoo kale waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay sida ugu dhaqsaha badan u sii deyso musharax Shucayb Maxamed Muuse. Shacabkani degmada Balaadh oo isu soo bax ballaaran sameeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: halka aan joogno mid kaaro laga ridayaa ma jiro, ma odaynano haddii laga qaadi waayo faraha, haddii imika la sii dayn waayo. waxaan u sheegayaa ummadda ka dambaysa ee wasiirka leh ee Cabdilaahi Balaagle inaan doorasho layda siinayo oo jeebka dadka ku haysataan ayna jirin baan caddaynaya oo xornahay baan caddaynaya. waxa weeye haddaad Shucayb sii dayn weydaan waxa weeye idina xor noqon maysaan, codku ma idinka cadaadin annagu halka ma ku fadhiisan annaguna. waxaan leeyahay xildhibaan Cabdilaahi Balaagle inuu faragelin qaawan ku hayo Shucayb waan ognay. shalay baanu dooranay sidiisii baqti sugayn u noqdo ma doonayna annagu waanu muujinayna awayaan iska soo daayay xildhibaanka tan halkan isku yimid tirada inta leeg ee dumarka iyo caruurta iyo haweenka iyo odayaasha iyo uqaasha iyo inta waxa soo dhanay waa taageerayaasha Shucayb. waxay halkan u yimaadeen qaarkood ba xitaa ooyaya waxaan halkan isku yimaadeen wax kale uma iman inay dareenkooda ka hadlaan, inay u sheegaan dadku inuu xadhiga Shucayb yahay cadaalad darro. marka waxa weeye madaxweyne ma waxaanu ku dooranay xisbiga kulmiye u dooranay inuu labeenta iyo xildhibaanada bulshada Soomaaliland xidhiidho ayaanu ku dooranay. taasi dhici mayso. waxa weeyaan waan ka xunnahay dib dambeysana xisbiga kulmiye u xoojin mayno. Shucayb Maxamed Muuse waad xasuusantiin waagu idinka baxay xisbigii udub maalintii sidaad u farxadeen, maantana xoogii uu cishada watay uu wataa ma yeelayno. waxaan madaxweyne ka codsanaynaa inaad Shucayb Maxamed Muuse xorriyadda loo soo celiyo, haddii kale se waxaan u arkaynaa dawladdu sharciga dalka inay iyadu baabiisay. tarkii uu soo qabtay baanu sheegaynaa madaxweynena dhaleecayn mayno, ku xildhibaanana dhaleecayn mayno, ku wasiirana dhaleecayn mayno. laakiin waxa weeye wuxuu qofku soo baxay wax la yiraahdo markay way dumarku xarkaan bayaan alla tabac qasaare waa inay si wanaagsan kuwa doo xumaado bayaan tabac qasaare. waxa weeyaan wax tabac qasaare waanu tabac qasaarayo maanta kolkii dibadda ugu soo baxay uu xisbiga u tagay uu banaanka marayna in gaari dabada laga xiro 90 bal ninku maal-shabaab 90 gaari buu ku bixiyay oo ciidana. waa nin doorasho doonaya, ninka doorashada doonaya waa umul baa leeyay umur jireer yar baa loo kariyaa in yaro garoo beerkeeda la xidha ma isaga dagaal ba qaadi karay doortaa buu leeyay. waa maxay teknikada dhan ma Puntland baa meesha soo dhex degtay oo xukuumaddu ma hadee maanta waa dimuqraadiyad nin waliba dalkan uu joogaa عداوة معها وأنا موادنا عندنا ما قسمي عندنا كم قاعدين يعود كحوك مدوني عبرون تان كحولنا حاس كيسي بالو دي إهل كيسي بالو دي تيس سياد بروك لوي وحن قعدنا من الحوينة نمشي دق فراه وقاضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ما حلبان كيجا أما قلها وكيلك إيه كلية دقمة Balaadh لقيا قانا Shucayb محمد موسى أيام ما أنت عبورين تاوكوها يو وانقحنا هاي وحي نقنصا ماذا عينا نسكوي من حكومة وحدورة شدًا به أين وذاقنو حديث سيدا وقول لك صاحب بدنا اللغة سو قادي وايو haddii sida ugu dhaqsaa badan haddii loo fasaxi waayo oo la sii dayn waayo waxay noqonaysaa Balaadh meel goob aan cidi waxba ku dooran. ariga arxan darrada ay xukuumaddu ay kula kacday maanta isagoo xisbi ka sharaxan oo dadkiisii wata oo u diyaara golaha baarlamaanka ee qayrkiiba uu sharaxan yahay waxa laga fajicisay oo naga yaabisay tamaanta wali ka hadda ku xidhan yahay ee waxa la wuxuu xidhan aan la garanayn soo saamaha waxa nahay oo mar walba diyaar u nahay oo nu taaganahay Shucayb Maxamed Muuse hadii la xidho hadii mar walba la geeyo codka uu xinaanaya saas kula jiraya mar walba isaga diyaar baan nahay waxaan caada dawlad taaganahay
إن هالكاو شوفنا وشعيب محمد موسى نينا كم بقينا عندنا حرية مين بدنا بقينا وحنا هاي نبض نقول بقولنا لي رئيس مالان عندك كم حكتو هذا سيدا يلا ياي سأقول أخسر بدل له موسى بيحكي واقي شلون هالجم يشلون يوم بهيتو هالجم يوريو عريو رفادي سوى واحد حيدي ما أنتوا وقاعد يا متر كم حيدا قد بوتر تامسيتو ما شو هذا سومال لا واحد ورشة ولا عسى متر تو كنا نموتشنا أنا كموتشنا شعيب محمد موسى طول ميجا الله وهيو هي عدالة هذا أنا عبارينه أنا قاعد هو يوين كده قد بلاد شوقي waxaan leeyahay Muuse Biixi madax meel taabto ka sareysan ma jirto madaxweynaha shalay uun baan u haglabin waxaan ku raanuucay madan oo hiiqin oo isbarban oo hiiqin oo nabiya cabin maalintii la dooranayay gabigeed waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case